haddaan ka soo bilaabo 1991 markii la qaxay saameyn badan baan ugu yeelatay aniga family balaaran baan ahay aabbahay Allah u naxariisto wuxuu ahaa bangaari bangiga dhexe xisaabiyaashii ku jiray xilliga marka la qaxayo caafimaad buu dibadda ugu maqnaa isagu waxaan ugu dhacday marka niman adeerada guriga joogay yaa dadku lama ogeysin bari baa la qaxay cid loo sheegay ma jirin qof kasta marka shaqadii iyo danihiisu aaday laba nin oo adeerada ka mid ahaa yaa ilaa yoomina hada mid ka mid la laacay oo dhimasho ku xisaaban kii kalena muddo kadib baa la heli doonaa waa 1991 dhimasho loo qaatay dabcan labadooda mid ka mid 2005 yu kismaayo telefoon uga soo diray aragti cudon jaalayaal ku soo dhawaada bandhiga la qaaye oo toddobaad walba hay'adaha iyo kale aan hawada idiin soo marsiino barnaamijka bandhiga la qaaye inta badan waxaan ku casuunaa dadka labeenta waa bulshada Soomaaliyeed isla markaana idinku soo gudbino sooyaalkooda iyo noloshooda idinka dahsoon waraysiyo kala gedisan aan kula yeelano toddobaadada isku ma jiraan toddobaadkani waxa barnaamijka bandhiga la qaaye marti iyagu ah Anwar Cabdifataax Bashiir aqoonyahan Soomaaliyeed asaasaha East Africa Institute waxana uu noo bidaamin doona inta hawada aan ku jirno sooyaalkiisa iyo waaya aragnimadiisa saxaafadda iyo waliba aqoonta guud soo dhaw Anwar professor bandhiga la qaaye bal waayahay inta badan dadku waxay u arkaan professor Anwar oo yani barnaamijyadiisa soo gudbinayo ama hawlaha qaranka iyo midda dhalinyaranimada ku leeyahay laakiin shakhsiyan inaysan inta badan aqoon baa laga yaabaa waayihii soo martay bal haddii aan si kooban aad inoogu bidhaamiso walaal qayb ma santahay magacaygu waa Anwar Cabdifataax Bashiir waxbarashadeeda iyo nolosheeda markaan aan dib u fiiriyo waxaan ku dhashay isbitaal Banaadir qixii Soomaaliya wuxuu dhacay anigu 4 sano jiro waxaan imid hooyaday baa igu waday waxaan imid Kenya waxaan ku noolay muddo dhowr sano ah kadibna waxaan u sii gudubnay dawlad deegaanka Soomaaliyeed maxaa la yiraahdaa Itoobiya hadda gacanta ku hayso gaar ahaan magaalada Qabri Dahar kalaaskayga koobaad ilaa shanaad waxaan ku qaatay magaalada Qabri Dahar lixaad iyo toddobaadna waxaan ku qaatay magaalada Goday kadib baan xamar Soomaaliya dib ugu soo laabtay oo dabcan de aabbahay iyo reerkanagu marka ay joogeen oo dad degan oo guriga kula aan ahayn Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho yaan waqtiga ugu badnaa ku qaatay kalaaskii 12aad 8aad ilaa 12aad waxaan uga baxay iskuul yiraahdo Khadiija oo ku yaal xaafadda Madiina gaar ahaan Dharkeenli xilligaas iskuulkan dhiganay magaalada waxaa kala haystay dadkii warlordski hogaam kooxeedyadii dhibaatada ummadda guud baan la qabnay markii dambe 2000 iyo markii la gaaray 6dii oo kii maxaakiimta ay timaad marka waxa isku kaysoodaan inuu dugsi sare markaa ka baxay iyo magaaladii oo system cusub maxaakiimta la wareegtay iyo wax yar kadib Itoobiyaanka magaalada soo galay marka sanadkii ugu darnaabay ahay iskuulkan dhameeyay iyo isku dhacan waxa la yiraahdaa waan xilligii ugu badnaa dhalinyarada ugu badnayd ee magaalada Muqdisho ka qaxeen nasiib wanaag aabbahay Allah u naxariistay yaa anigii celiyay dadkii baxay tahriibkii meelaha aaday maan ahayn sanad kadibna waxaan bilaabay jaamacadaydii jaamacadda Muqdisho yaa waxaan ka bartay kulliyadda saxaafadda wixii ka dambeeyay waxbarashadii post graduate kana iyadoo qaab noocaas ay u socoto dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba aan u aaday masterkii koobaad waxaan ku qaatay wadanka Uganda laba kale master waxaan ka sameeyay isla magaalada Muqdisho kadibna waxaan deeq waxbarasho waxaan ka helay dawladda South Korea oo ka soo diyaariyay masterkayga afraad dabcan inta waxbarashadan waday waxa ku daba socotay isla markaana aan ka shaqeynay magaalada Muqdisho gaar ahaan warbaahinta waan ka soo shaqeeyay broadcasting muddo kooban laakiin inta badan waxaan ahaa dadka qoraalka waxa la yiraahdaa inta badan waqtiga galiyay wakaalada badan oo ay ku jirto Al Jazeera Anadolu Agency Daily Nation iyo kuwa kala duwan yaan qoraaladeeda laga heli karaa ugu dambeyn xagga waxbarashada waxaan hadda PhD aan ka dhameeyay jaamacadda Nairobi wali waxa ay dhiman difaacashadii buugga marka sooyaalkay oo kooban waa inahaas waaya dabcan markaad ka soo laabatay Itoobiya ee aad Muqdisho ku soo noqoteen waxaad timid wadankii wari dagaal soo kay dhibaatooyin ay ka jiraan maxaad ka xustaa dhacdooyinkii ama dhibaatooyinkii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka horta aad bay u badnaayeen laakiin kuwaan isleeyahay touching oo aad ka ii taabtay dhacdooyinkii xilligii Itoobiyaanka markii magaalada soo galeen
ayaa berigii hore magaalada waxaa ka jiray laba warlord yaa dagaalamaya marka dagaalku wuxuu ku ekaanay labada xaafadood ay degan yihiin dadku marka wuxuu ku nafisi jiray in xaafadaha kale loo qaxo waxay yimaaday maxaakiimtii muddo kooban 6 bilood dabcan waxay ahayd short time gain wax la yiraahdo laakiin long term bail muddo kooban amniga la helay laakiin waxaa ka dambeysay balaaya ka dambeysay Toobiyaankii waa soo galay waxaa bilowday hubkii waaweynaa wax la yiraahdo fooriye loo bixi magaaladii oo dhan baa isku qaxday marka dhacdooyinka ugu darna xilliga aan ka xasuusto waxaa ka mid ahayd yacni qoysas dhan oo guri iska degan in fooriyahaas hal mar ku habsado la garan waayo marka meel loo baxsan dhaawac qaab loo qaado male magaaladii tii baa ka jiray walow aniga xaafadan deganayna Madiina relatively ay ka fiicneed xaafadaha kale oo inta badan dadka u soo qaxeen dhacdooyinka marka mucjisada waxaa ka mid ahayd tirada dadka soo qaxaysa iyo xaafadii isma lahayn marka waxaad arkaysaa geedaha hoostooda iyo wadooyinkii la mariyay sijaayada iyagoo yaal la wada hurdo meesha naf laga raadi marka dhacdooyinkaas aad waxay u ahayd kuwa xanuunka badnaa xilliga marka fooriyowga iyo yani madaafiicdan la tuuraya ma soo gaareen xaafadiina ka dhignayd way soo gaareen meelaha qaar laakiin Madiina waa laba degmo waaweyn marka waxa la heli jiray isbeysyo marka ay dadku sii aadaan waxaan xasuustaa waxa laga yaabaa hal jid ay ku yaalaan konton guri in laga raadiyo guri marka shub ah si loo wacro markay bilowdaan maxaa la yiraahdaa madaafiicda waaweyn wana dadka hore u aqoonin waya shakhsiyan ama qoys ahaan saameyn mid ku yeelatay dhibaatooyinkaasi dhacay dabcan haddaan ka soo bilaabo 1991 markii la qaxay saameyn badan baan ugu yeelatay aniga family balaaran baan ahay aabbahay Allah u naxariista wuxuu ahaa Bangaari bangiga dhexe xisaabiyaashii ku jiray xilliga marka la qaxayo caafimaad buu dibadda ugu maqnaa isagu waxaan u dhacday markii niman adeerada ee guriga joogay yaa dadku lama ogeysin bari baa la qix cid loo sheegay ma jirin qof kasta marka shaqadii iyo danihiisu aaday laba nin oo adeerada ka mid ahaa yaa ilaa yoomina hada mid ka mid la laacay oo dhimasho ku xisaaban kii kalena muddo kadib baa la heli doona waa 1991 dhimasha loo qaatay dabcan labadooda mid ka mid ah 2005 iyo Kismaayo telefoon uga soo diray markii waan qaadan weyn waa dhowr 10 sano kadib goorad ka sawartay madasoo laga samraxaa markii dib noo sheekay dagaalka markuu dhacay dadkii nimo gobol buu u qaxay marka Kismaayo aaday waxaa la keenay ciidamo Belgium ah oo marka isku dayay inay magaaladii dadka kontroolaan dhalinyaradii marka hubka qaatay la dagaalamay uu ku jiray waa la qabtay maadaama Kismaayo bariga xabsi weyn uu sin jirin waxa loo dhaadhiciyay Kenya wuxuu noo sheegay Mwai Kibaki markuu ku guuleystay xilka madaxtinimada Kenya maxaabiista cafiska uu fidiyay uu kamid ah marka adeerkay uu joogo hadda uu shaqeeyo magaalada Xamar buu ka shaqeeyaa adeerkay kale dhimasho isagu warbixinta ma kama helin inuu dhinto baan yaan u ictibaarin marka masiibooyinka ummadda ku dhacday baan qayb ka ahayn aniga si gaar hooyaday baa ila qaxday Ismaaciil halkan nimid kadib waxaan u gudubnay dawladda deegaanka Soomaalida inuu si gudubnay waya ma jireen yani takhasusad gaar ah oo aad xiisayn jirtay markaad yarayd ama dugsiga dhiganaysa ama iskuulka dhiganaysay oo imika dadweynaatay aad mataqaan hirgelisay iskuulka markaan dhiganayay waxaan aad u jeclaa wax la yiraahdo dhakhtarnimada yaan aad u jeclaa gaar ahaan maadooyinka culumta la yiraahdo sida biology oo kale aad baan u jeclaa marka waxaan xasuustaa buugayga waqtigeeda doctor iyo waxaan iskaga qori jiray iskuulka markaan ka baxay jaamacadda aan gelin yaa waxaan ogaaday inaan dhakhtarnimo ku fiicnayn takhasuskaygu u saahay nin marna macallinkayga marna aan saaxiibo ahayn iskuulkan dhiganay maamul ku xigeenka ah yaa maalmaha ka mid ah scholarship jaamacadaha ay bixiyeen uu soo xiriir amar mid ka dooro muddaan haystay midaan ka doortaan waay markii dib wuxuu yiri adiga kuliyadda aad ku fiican tahay ana aqaano waa ama siyaasadda ama saxaafadda sidii baan marka jaamacadda Muqdisho ku galay kuliyadda marka xilliga markaan dhiganay hadda way isbedeshay waxa la dhigi jiray kuliyadda saxaafadda iyo siyaasad marka takhasuska yaraantii aan jeclaa iyo practically markaan weynaaday way kala duwanaayeen saxaafadda marka hore waxaan islahaa kuliyaddan walaha kuliyad aad muhiim u ah ma aha way Soomaalida markaad fiirisid saxaafadda waxay u haystaan wax la bowsado oo qofku uusan u baahnayn takhasus ahaan iyo ethics iyo wax inuu barto
intaan marka jaamacadda dhiganay waxaan ogaaday marka saxaafaddu inay tahay kuliyadaha ugu fiican caalamka. waxaan xasuustaa camiidkayga hormuudkii kuliyadda allahu naxariista u dhintay sorry wuxuu dhihi jiray qof kasta oo saxafi ah waa siyaasi, laakiin qof kasta oo siyaasi ah saxafi ma ah. marka intaan jaamacadda dhiganayay idaacadan waxaan ka yar shaqeeyey, idaacaddana baa ka mid ahay. TV baan iyadana marka shaqeeyey, Somalisad hadda khadka wuu ka baxay. wixii intaa ka dambeeyey marka waxaan ogaaday saxaafadda middan maxaa la yiraahdaa broadcasting-ka inaan ka jeclahay midda kale ee qoraalka. markaasaan waxaan bilaabay marka maqaale inaan qoro ama carabi ama English, labadaasaan inta badan yaan adeegsan jiray ilaa yoomina haadana qoraalki waan wadaa oo maxaa la wargeysyo kala duwan iyo digital media laftirkiisaba waa ku qoraa. waayahay marka hayaankaaga saxaafadda waxaa la dhihi karaa marka jaamacaddu ka soo bilowday mise waa ka horeysay oo يعني institution kale aad ka shaqeynaysaa jirtay? ma jaamacadan ku bilaabay digriga markaan bilaabay saxaafadda aan jeclaadana ogaaday kuliyad muhiim inay tahay. yaa waxaan ku bilaabay 2011 yaa maqaalkii ugu horeeyay oo carabi aan daabacay. marka waxay ka bilaabtay jaamacadda. maqaalka muxuu ka hadlay? inta badan xilliga 2011 waxaa jiray dagaaladii maxaa la yiraahdaa al-shabaab. marka hore maxaakiimtii iyo stage hore u ahaa, stage-kii dambe marka dawladdii Sheekh Shariif oo markaa jirto ayaa dagaalada aad u badnaa. waxaan xustaa buugga thesis-ka markaan qoraynay magaalada dadka jooga way koobnaayeen, dagaalo safmareena socday, wadooyinku way go'naayeen. waxaan xustaa nin saaxiibkay ah isku galaas ahayn in meel la yiraahdo Farjana oo markuu shaqada ka yimaado uu soo mari jiray. meesha nooc yar oo ismiidaaminay ahayd, qofka meesha maray inta badan ama waa la dhaawici jiray ama maxaa la yiraahdaa waa la dili jiray. buuggiisa marka xog badan oo kamid ah wuxuu u tiiray meeshii uu soo maray. marka nasiib wanaag aniga xaafadda Madiina deganayn waan ka dhib yareen dadka kale, laakiin muurka iyo maxaa la yiraahdaa culaysyadii jiro qayb baan ka ahayn. waayahay xilligaas in qof saxafi ah marka shaqay ma fududayd? dabcan ma jirin, suicide bay ahayd, ma sahlanayn. weliba idaacadaha waxaa lagu amri jiray in warbixinta nimanka shabaabka xilliga maamulka iyo qoladii kale xisbul islaam la baxday kooxii kale in macal muusiga yar la raaciyo wararkii marka la sameeyay inay ka jaraan, monitoring in lagu sameeyo. qof iyaga kamid ah inuu mar walba uu kaaga dhawaado institution-ka ama maxaa la yiraahdaa idaacadda meesha ku taalo. waxaan xasuustaa idaacadda Danan yaan muddo kooban ka shaqeynay. marka darbigii iyo agaarkeeda waxaad ku arkaysaa dad badan oo marka strange ah oo dareemaysa inaynan dadkan caadiga ahayn. masaajidka Abu Hurayra u dhawaa hadaad xasuusato. marka cabsidaasaa jirtay. maqaalada marka beriga aan qorayna waxay ku salaysanaayeen colaadda iyo waay newska kaliya xilliga dadku ay maqli kareen wuxuu ahaa dagaal ama maxalli cabsi jirto. marka kuwaasay u badnaayeen. maktab la yiraahdo al-shaahid yaan ku qori jiray iyadoo carabi ah. dabcan qof saxafi baad ahayd in mataqaanaa muqdisho la isaga kala gooshana saad noo sheegtay way adkayd. sidee marka idinkugu suurageli jirtay inaad mataqaanaa yani mararka qaar dhanka dowladda intaad u gudubtaan xoog ka soo heshaan haddana aad dib ugu soo noqotaan ama soo dhex martaan deegaana ay nimankii maamulayaan? wallaahi horta ma dhib shaqo dhib yar ma ahay, shaqo aad u dhib badan bay xilligaas. waana tan keeni doonta inaan broadcasting-kii waxaaba inaan marka dambe aan ka tanaasulo. marka xilligaa waxay ahayd marka qofka inuu calaaqo la leeyahay labada dhinac. maxaan ka wadaa yani cid information-ka ay ka helayaan inay jirto. marka waxaa riski ahayd labada dhinac isdiidanba laba xog oo kala duwan baa lagu siin. marka xogaha inaad balance u samaysid yaad u dhib badnayd. marka qaar wariyaashu waxay samayn jireen qofna xagga inuu ka soo waramo midna dhinaca kale xogtana la isoo weedaarsado. marka wax easy oo laga sheekeyn kara ma ahayn. wariyaal badan baa ku dhintay. maxaa la yiraahdaa gaar ahaan idaacaddii hoona frigiisha wariyaal waaweyn oo ka tirsanaa. waayahay siyaasadii isdiidanaa ee dalka ka jiray iyo tinintiini saameyn intee laga isku ahay? dabcan waa tan haddaan kuu sheegayo awaamir kala duwan in maxaa la yiraahdaa stationka ama wariyaha lagu amro inuu sameeyo. markaana wada hadal iyo maxaa la yiraahdaa editorka iyo dadkii idaacadda mas'uulka ah iyo wixii oo dhan
maxaa la yidhaahdaa in aada loo falanqeeyo waana midda keentay ugu dambeyn xarumo warbaahineed inay kasoo guuraan bakaaraha iyo dhinaca xaggan kale maxaa la yidhaha ay yimaadaan marka ma ahayn wax fudud ma ahayn in la baalansi gareeyana aad buu cuslayd xilliga dabcan waxaa jiray dilal qorshaysan oo xilliyadaasi soo bilowday in lagula kaco wariyaashii ka howlgalayay Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho oo aad ku noolayd maxay salka ku haysay marka dilalka wariyaashaas leedahay I think waa wax iska cad waxay la xiriirtay afkaarta dawladda inaan la sii dayn oo tooda la sii daa la buubuuni intaas horta basic u ekayd laakiin waxay lahayd albaabo badan oo laga soo galo albaabada marka waxa kamid ahaan lahayd idaacadaha qaar laftirkooda inay toos xiriir ula sameeyaan labada dhinac qaarkood intay ka dhiga adeegaan in ama la dilo ama qofkii la xandida ama meesha uu ka baxo marka inta badan afkaarta kala duwan baa asal u ahayd iyo cid walba iyadoo rabto dawladda laftirkeedu wariyaal badan baa xilliga la toojar gareeyay ama la xiray magaalada ka cararay marka waxa ay xilli xasaasi ah laakiin inta badan dawladdu waxay kaga duwaneyd waa system jira qofka in la xiro maxkamad la geeyo qaarkood marka dambe la soo daayo ay helaan waliba maxaa la yiraahdaa apology laakiin dhinaca kale boqolyahan maxaa la yiraahdaa argixisada ama ururadii kale markaa jiray iyagu la mid ma ahayn go'aan kaliya ay lahaayeen waxay in la sameeyo waxay fareen ama hadii kale qofka ay wax gaarsiiyaan dabcan inta badan wariyaashu markay dhibaatooyinka u adkeysan waatay ka qaxeen dalka oo qaarna Soomaaliland halka aadeen qaarna Kenya soo galeen qaarna Uganda galeen dabcan wariyaal farqu tirisoo xaraa jiray ma la sidii kale xaliyay baa dadkaas dabcan yes xaliyay bay ahaayeen waliba Soomaalidu ma abarjeed gareeyaan dadka wax fiican qabtay waayo xogta kali ah iyo nolosha xilliga jirtay waxay dadku waxay maqlaan saaka meeshu isleeyahay aad waxbarashadu aad ama ka shaqeynaysid waa in warbaahinta aad xogta ka hesho wadada xiran meesha la aadi karo meesha dhibaatada ka jirto laakiin mihnada saxaafadda Soomaalida kuma weena dhaxdeeda waxa weeyaan mihnad yar oo maxaa la yiraahdaa qof markuu waayo options kale inuu galo marka Soomaali wali maynan maxaa la yiraahdaa qiimeyntii la rabay warbaahinta iyo wariyaasha ma siiso laakiin xilliga dadka ugu mudan bay ahaayeen oo riskiga qaatay iyagoo awooda marka inay si shacabka kale iska nastaan ama ay guuraan oo tahriibaan iyo waxay go'aansadeen maalin kasta inay riskiga qaataan waaya marka laga hadlayo qatarta inay mataqaana qofka saxafiga kan wax qoraay ama kan idaacada ka hadlo ama kan TV-ga ka soo muuqdo ka halis badnaa dabcan xilliga waxa iska lahaa idaacada TV-du aad buu koobnaayeen laakiin risk marka la dhoo TV-gu wuxuu leeyahay muuqaalkii qofka la arkaya waxa easy ah marka in la helo qofka hadii loo baahan radio inta badan codka iyo qiyaasta ayaa lagu garan karaa marka qofan hore u aqoon qofkan muuqaal ahaan ma soo saari karo marka waxa amniyan waxa risk badnaa wariyaha ka soo muuqanay TV-ga waaya inkastoo wariyaashu aysan noo kala duwaneen oo wariyaashu noo sameeyeen dilalkooda ayna saameysay dhibaatooyinkooda ayna saameysay ma jiray asxaab aad kugu dhaweyd ama aad yani soo wada shaqeyseen ama aad si uun isugu dhaweedeen aad ku weyday dilalkii qorshaysnaa lagula kacay dabcan wariyaal badan baa la dilay qaarkood institution ama anigu aan ka shaqeeyay maxaa la yiraahdaa ka tirsanaa laakiin specifically waxaa jiray Allahu naxariiste in la yiraahdo Axmed Faarax Gaatamo oo isku galaasina Allahu naxariisto kuliyad saxaafadan ka wada baxnay isagu yani shabaab iyo dadka limeena dil xanuun caadi u dhintay qofkii ugu dhawaay wariye aan ku waayay ahayd laakiin qof institutionka si gaar ah saaxiib u ahayn oo ku dhintay ma jiro laakiin dadka waa la soo wada yaqaanaa saaxiibtinimada guud iyo dadna isku xaafad ahayn iyo kuwa institutionada ku dhintay way jiraan dabcan dilalkaas markay dhacayeen dadka qaar baa waxay aaminsan yihiin xirfad yari oo dhanka saxaafadda inay wariyaashu u keentay ma aaminsanta maya waan ka soo horjeedaa waayo wariyaha ku shaqeynaya xaaladda riskiga ah wuxuu u baahan yahay protection isaga in la ilaaliyo waxyaabaha la amrayo waxaa ka mid ah inta uusan cid kale maxaa la yiraahdaa xogteeda iyo amnigeeda uusan ka fikir horta isaga inuu safety-giisa uu ilaaliyo dabcan ma jirin marka tababaro lagu xoojinayo mihnada iyo khibradda saxaafadda oo ay leedahay xilliga ma jirin waxay ahayd xirfadda kaliya banaan waxa qof geesi ah
oo ummadaas xog u soo gudbin kara in la helo marka contextka xilliga jira marka lagu qiimeeyo in xirfad yari ma jirin waliba rakarooni bay ahayd laakiin hadda xilligii nolosha sida hore ma digital media soo baxay Soomaalida dad badan oo saxaafadii bart oo dal iyo dibadda joogo wariyuhu marka hadda wuxuu ku qasban yahay dhammaan qawaaniinta caalamiga inuu raaco isagoo safety-giisa ay number 1 ay ka tahay marka xilliga marka la fiiriyo wariyaashu aad kuma lahayn geesinimo ay ahayd in mehnada laga shaqeeyo laakiin hadda way ka duwan tahay in xirfadii la siyaasado fursadoona intii waa ka badin dabcan marka waqtiga muhiim ah waayahay marka isbarbardhig ku sameeyno xilligii hogaamiye kooxeedyada ay ka tilinayeen xamar iyo xilligii ay argagixisadu joogtay dawladda isku mantaqana dagaalamayeen yaa halistu badneed marka dhanka wariga saxaafadda markii dabcan isku mid ma ah marka qaar dhalinyarada markaan kaftameen xilligii maxaakiinta markay timid dagaalkii Etoobiyaanka uu xigay waxaan ku kaftami jirnay xilligii nabadda oo aan ka wadnay xilligii warlordska dabcan waxay ku ekaayeen labada deegaan marka ay dagaalamay inta kale caadi bay ahayd xilliyada qaarna waxay ku koobneed qabaa'il iyaga si gaar ah isku bartilmaameedsanay marka waxaa jira flexibility kala duwan laakiin xilligan dambe saf mareen bay ahayd ma jirin dhacdooyinka naxdinta laan aad ku leeyahay waxa kamid ahayd 2009 jaamacaddan dhiganay xaafadda Dharkiileban deganaa xaafadan wadajirna waxa deganaa nin waxa haysan jiray Axmed Daacil warlorada caanka kamid ahaa ayuu buu noolay hadda xitaa xaafadanadana waxa haystay marna shabaab haysta marna jamhadii kale marka dhalinyarada xaafadda aan ku deganna laba riski baan u dhaxaynaa number 1 kuwan argagixisada iyo waxaas inaad la shaqaysid oo riski ah maya inaad la shaqaynin laakiin maadaama xaafadda aad degan tahay inaad victim u noqoto oo markii Axmed Daaci ama maxaa la yiraahdaa warlords kale ay nimankan soo weeraraan inaad adiguna aad cararto si conceptiga la haysto xaafadda dhalinyarada degan inay nimanka ka wada tirsan yihiin conceptigaas jiray marka labada marba riski baan ku jirnaa waxaan sameyn jirnaa marka jirdiinada xaafadda ku yaal intaan fadhiisan qolyahan haysta markii la soo jabiyo inaan iyaga intaan la cararna aan meel kale hadana aan fadhiisan waayo dhalinyaro badan waxa jira loogu yimaaday xaafadda oo la dilay maalin waxaan xasuustaa 2009 bay ahayd xabadihii ba xaafadda ku soo dhawaaday marka meel loo cararo ma lahayn masaajid xaafadda ku yaalan galay marka masaajidkii marka kitaabkii baan si degdeg ah u soo qabsaday dhalinyaro badan meesha ku soo cararay dhalinyaro meesha ku jirtay masaajidka soo galay ma case bay soo fuleen ma tuhum baa jiray nimankii hal mar waxaan aragnay kabii la soo galay masaajidka nin bay soo kiciyeen marka meel xoogaa ii jiray waxay uga cabsi badneed marka kitaab uu gacanta ku hay kitaabkan dhigi wiiray waa nin raacaya marka kitaabka de masaajidku way meel badan baa la dhigi kar meeshan fadhiyay wuu la soo aaday hoosta waxaan ka leeyahay war kitaabka lagu sii qaaday meelaha madgeysi maxaad meesheeda maxaad u keentay waxyaabaha cabsida ka mid ah nagu soo maray marka victim labada dhinac victim baan u ahay waana dhalinyaranimada keenayso waxaan kaloo xasuustaa habeenkii kutubana masaajidda ka raacan jiray marka kulliyadda aan dhiganay jaamacadda Muqdisho af Carabi xilliga ku baxaysay marka waxaan sameyn jiray buwaagtida Carabiga qaar kamid ah hore u sii qaadan jiray waayo waxaan ku xisaabtamay masaajidka qolihiina inay imanayaan marka aragtida haysteen waxay wax kasto Carabi diin bay u yaqaanaan marka buug baan qaadan oo maadadii aan markaan isleeyahay jaamacadda galaaska maalinta aan qaatay waxa laga yaabaa inay ku qoran tahay madkhal ila cilmi al-i'laan waa hordhac ku saabsan warbaahinta laakiin Carabi ku qoran yahay masaajidkan tagi marka Carabiga jaamacad baa dhigtaa baa la dhahaa wani wad fiicanta Carabiga luqad islaamiyada wax ku bartaa baa la dhigay wax madmuunka wax gudaha ku jirana waa mabaadi'da saxaafadda wax marka waxyaabaha xiliyada sida gaarka in soo maray bay kamid ah marka qaarna waan naxaa marka qaarna waan qoslaa dabcan bulshada la noolyahay naftarkeeda oo aad ka dhalatay baad ku nooshaayba waxa laga yaabaa in qaar afkaartooda nimanka ay haystaan farmo ma jiri jirin marka dabcan da xilliga waxa rambanti ah dadku inay qaybsanaayeen dadna waa dadka si muujiye dagaalada labada dhinac midkood ku jiro dadna waa dad favoritism siinay labada koox mid kamid ah marka de xaafadaha iyo dadku maxaa la yiraahdaa tuhun guud waa iska jiray laakiin xilliga waxa asal aha qof kasta inuu isu dhuubo oo marka dadka industry-ga aad ku jirtid
haddii jaamacada dhiganaysa dadka jaamacada dhalinyarada aad taqaan inaad ku ekaatid haddii business aad ku jirto inaad ku ekaatid laakiin tuhunka meel kasta wuu ka jira iyo dadku inay kala shakiyaan gaar ahaan xaafadaha mixedka ah oo inaan hal reer ayna u badnayn sida xaafadda annagu aan deganayn oo kale waa saldhig galbeed agtiisa ceel dheer allah xaafad iska mixed Soomaali qabiil kasta ay deganaayeen bay ahaayeen waaya inta badan waxaa marka dhibaatooyinka ugu badnaa xamar ka jiray waayada waxaa la sheegaa in tusaale qofka haddii ciidan ka soo gasho dhanka dowladda ay jirto uu aado uu ka soo noqdo oo caqabada la kulmayo mararka qaarna qofka dowladda dhankiisa jira halkaas soo aado in mataqaana dhanka lagu tuhmayo bal ka waran qaab noocee ay bulshada u saameysay dhibaatooyinka lagala kulmay haddii aad hal iyo laba ka xasuusto dabcan shay wuxuu ahaa beriga caan u ah yani qaabka hadda aad u sharxaysay oo dadku maxaa la yidhaahdaye dadka waaweyn ama wax bartay dabcan dowladnimaday u janjeereen iyagu waxay fahansanaayeen maxaa la yidhaahdaye waddada ay ku socdaan inay waddada saxan tahay dad dhalinyaro badan oo xilligaa maskaxda laga qaatana way jireen arrintan marka si gaara specific ah odayaal waaweyn xaafadana la deganaa yaan xasuustaa oo dowladnimadii Soomaali garanayay isla markaana markay dhalinyaradii noo yimaadaan nawaanin jiray yaa jiro ugu dambeynna sababsaday sida oo ku dhintay way jiraan marro inaan magacyadooda sheego laakiin xaafadana aad bay uga jirtay oo loo dilay dowladnimo ama xafiis buu service u doontay ama uu soo salaamay in dabagal lagu sameeyo xaafadda lagu dilo 1 ma ah 2 ma ah 3 ma ah 10 ma ah aad bay u badnaayeen marka saameynteeda way badnayd